asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan ee ku xidhan janaalka Bayjoog soo dhowaada. Janaalkan cusub ayaan furan waana muuqaalkii labaad aan soo gelinayno ee la socda faldan. Haddii ay tahay marka waa soo booqatay janaalka subscribe saar. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha Caakif arrinkiisa. Haddaba sida la sheegayaba ama sidaan muuqaalkii hore janaalka Khalid Ram uga hadlaynay aan ku soo sheegnay waxa laga shakisan yahay beerkii iyo dabcan Cumar inay walaalayihiin Rasuul Oskayana uu yahay aabaha dhalay Cumar. taasi runtii waa macquul ma aha sababta Suuzaan way badan tahay in la joogeedo. marka muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha. haddaba Caakif siduu xabsiga ku gari doonaa, siduu ku fashilmi doonaa. sida u badan ee la sheegayo Caakif waxaa fashilin doonaa wiilkiisa Kahan, sababtoo ah Kahan ayuu isku dayayaa mar labaad in uu dhibaateeyo ama mar labaad in uu guriga iyo waxyaalo saas dhibaatooyin dareensiiyo. sida loo badinayo Kahan waxa uu fiidiyoogii uu Qadiir tusay ka reebtay, dabcan waxa uu ka reebtay koobi fiidiyoogaskii koobi ayuu ka reebtay oo wuxuu ugu cagajuglayn doonaa ninkan lagu magacaabo Caakif ama Cumar ayuu tusi doonaa. xalqada caawa aan wada sugaynay xalqada 63 ayaa waxaana macaslaami doontaa Nabahad halka kaliya loo badinayo gooskooska maadaama jar ka dhacday inay dhamatay in kala runtii ma sheegi karo, laakiin macaslaamiinteedaba waxaan sugno. sidoo kale caawa waxaan sugaynaa dabcan Suuzaan iyo Rasuul Oskaya wada shaqayntooda cusub. Suuzaanna way ka baxday faqrigii oo waxay ku laabanaysaa sidoodii hore. Duurku marka uu maqlo arrinka walaashiisa muxuu samayn doonaa? ma laga yaabaa Melissa in ay soo laabato mise sidii hore u sheegeen buu Melissa waxaa la dhihi doonaa waa ay dhimatay. sababtoo ognahay Melissa waxay ku soo laaban doontaa TV-shinada iyadoo wadata musalsal cusubba. xalqada caawana ama xalqada 33 ayaa cawli doona xalqada 34 waxaa la filayaa in la xaqiijiyo Melissa dhimashadeeda kadib markii ay maqasho Melissa in Cumar ay wax walba ogaadeen. waxaa la dhihi doonaa Melissa waxay isku dayday in ay isdaldasho ayadoo xarunta caafimaadka ku jirtana Melissa way isdaldashay waana ku xunaya la dhahayaa. Melissana halkaas ay nagu macaslaaminaysaa daawade ee saas la soco. dhanka kale beerkii iyo Cumar haddii walaal noqdaan maxaa dhici doonaa? sayse walaalo ku noqonayaan. Cumar abihiisa waxaa lagu magacaabaa Axmed Yilmaz sida ay noo sheegtay Suuzaan, waxaana kala geeyay aabaha dhalay Suuzaan ayaa kala geeyay labadaasi lamaane. haddaba Cumar sidii ay Suuzaan ku dhashay waan ognahay kadib markii Axmed Yilmaz iyadu ay isla baxsadeen ilmahan ay dhashay. ilmahan waxaa ka soo agxaday dabcan qoftaan kale ee lagu magacaabo ilmahan waxaa ka soo agxaday Suuzaan aabaheeda waxaana keenay marin ciida salaad jumcada tukanayay ayuu keenay masaajid hortiisa waxaana soo qaaday Weli iyo Orhaan waxayna u keeneen islaantii dabcan Khadiija ahayd. xilligaas Aasiya oo yareed ayaa la agdhigay ayagoo laga dhadhacsiyay in ay mataanan yihiin, sidaasina Cumar waa ku soo karay. laakiin nasiib darro siisakii koobaad ayaa waxaa dhacday Orhaan in uu u sheego Qadiir ha u sheego Maxamed Cumar wuu ogaaday, laakiin ugu dambeyntii wuu isqaboojiyay oo Caakifata kulliya khashfay ahayd oo waxauna aaminay in ay Suuzaan hooyadiisa tahay, laakiin ilaa hadda ma uusan ku oran hooyo. laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya waxaa la filayaa in uu isticmaalo ama marwa Suuzaan uu ka daayo uu hooyo ugu yeedho. haddaba haddii uu Caakif dhinto maxaa dhacaya? ama haddii Caakif la geeyo xabsiga maxaa dhacaya? muxuuse yahay ninkan aan laga guulaysanaynin? maxayse tahay sababta magaciisa lagu xusay xalqad walba bilowgeeda ama generic wax loo yaqaano ama al-muqaddima ama soo galitaanka musalsalka maxaa magaciisa lagu horeeyay? waxaa la sheegayba in qisada ugu muhiimkasan ay ku saabsan tahay Caakifata Kuul iyo dhibaatadii uu ka geystay afartaas walaalo, inkastoo hadda midkii weynaa uu naga baxay 3 ay soo hadheen. marka qisada dhanba asay ku saabsan yihiin. haddii asagina la saaro runtii waxaa qisadu ma soconayso oo qof dambe oo dhiba ma jiraayo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa in daawadayaasha ay isweydiiyaan ama isdhahaan Caakif ayay u dulqaadan waayeen kana se ugu dulqaadanayaan waxaan wax qisa jirta ma ahee naga dhaafa ama daawashada musalsalka la iska dhaafo. saan ognahay musalsalku waa musalsal runtii dhankaas iyo YouTube-ka taxanayaasha Turkiga kan ugu daawashada badan ama kan loogu xiisaynta badan yahay wadan walbana runtii qabsaday sida wadamada Carabta xitaa wadamada Soomaalida iska dheh. marka taxanihi waa taxana runtii aad loo xiiseeyo, lamana doonayo sidan sahalka in Caakif uu ku dhinto halka ay runtii ka qoomameynayaan Qadiir ka saaridii ay ka saareen maadaama uu rating iyo wax walba hoos uga dhaceen. haddana saasay tahay
Bilaal Yigid Kojak waa jilaal lagu magacaabo Cumar Bilaal Yigid Kojak ayaa lagu magacaabaa laakiin waxa uu ka mid yahay jilayaasha taxanaha Kaardaslarim doorkiisana waa Cumar ayaa loo badiyay inuu atooraha musalka yahay macnaha akhbaaraadka ugu dambeeyay waxa la siiyay bilad sharaf runtii cadeynaysa inuu yahay actor wanaagsan ama jilinkiisa waad u qurux badan yahay markii ugu horeysan filimka soo galay aniga atoora waxaan moodayay Bilaal Yigid Kojak waa Cumar ayaan moodayay haddana way la cadeeyay oo Cumar ayaa loo badinayaa marka Cumar waxa uu ka door sareeyaa Dooruk ama uu ka muhiimsan yahay Dooruk Cumar dabcan waa ninka musalka ka hadlaya Kaardaslarim ikhwati for my family ama walaalahay macnaha waa ninka qisadu ka hadlayso Cumar maadaama uusan kamid ahayn saddexda walaalaha kala Qadiir iyo Asiya Emil maadaama uusan la dhalan asaga ayaa wax walba reerkiisa dartiisa u sameynaya marka saa darteed Cumar waxaa la siiyay runtii bilad aan ku farxay dhanka Instagram-ka ay soo dhigayeen Bilaal Yigid Kojak oo la siiyay biladaasi xitaa Kaardaslarim oo soo dhigaysay ku faanisay halka xitaa Dooruk la siiyay laakiin Dooruk caawiyanimo ay loo siiyay Cumar ayaa la siiyay ahayd haddii aad u fiirsatid Cumar waa uu ka jilin fiican yahay dhammaan kuwan kale ee meesha jooga waa una ka furfuran yahay sidoo kale qaabka uu wax u jilayo uma malaynayso runtii wiil yar oo actornimo aan gareyn Cumar waa uu qalma actornimo waa una jili karaa actornimo halka nasiib daro qofta hadda soo jeclaanayo ay walaalkiisa markii la dilayay gaarigeeda lagu dilay ayaduna ay ku jirtayba gaarigii lagu dilayna iyadoo ay lahayd ay ka qayb gashay laakiin waxa laga yaabaa in gabar kale la keeno Suuseena xabsiga la geliyo wax walba cadaan doonaan kooska xalqada 34 oo caaw sugino iyo xalqada 33 ba inkastoo macluumaadkaasa aan la sii faahin doonin laakiin waxa wada sugnaa waa dhimashada Nabhat haddaba daawadaha qiimiga badan oo janaalkan Bajok waxaan u furay in aan uga hadalo taxanayaasha Turkiga iyo taxanayaashii hore baan uga soo hadli jirnay Khalid Drama janaalkana active ayaan ka noqonaynaa maalin walba waxaan isku daynaa in aan muuqaal soo gelino marka janaalkan Bajok ha iloobin inaad subscribe saartid haddaba janaalka Bajok waxaan uga hadli doonaa dhammaan musalsalada Turkiga kuwa hadda aad la socotiin ama Soomaali lagu turjumo aad garanaysiin taxanayaasha aan janaalkan ka bilaabi doono falanqeyntoodana hadda ka hor falanqeynin waxaa ka mid ah taxanaha cadaaladda sidoo kale taxanaha saddex kumi sidoo kale taxanaha gabadha la ciilay sidoo kale taxanaha hadda ka hor falanqeyn jiray ee hakadka weyn runtii nagaga imaaday ee Cadgoosi Caashaq sidaas darteed si aad ula socotid taxanayaashaasi subscribe sar janaalka sidoo kale gambalaalka furo muuqaal kale next like noo sar dhiirigelin ayay noo tahay anigoo saaxiibkiina Khalid Ramo mar walba garab taagan sida caadi wax nigaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh